بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلهي سبحانه وتعالى dumarku wuxuu u sameeyey khaasatan kuwa iimaanka leh miise iyo qiimo iyo qaayo aad iyo aad u weyn. waxaad ka fahmi kartaa waajibaadka ilaahay dusha ka saaray subxaana wa tacaala. waxaad ka fahmi kartaa qiimaha dumarka loo yeelay, sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala inay ku dadaalaan xirashada xijaabka iyo dharka islaamiga ah. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu yidhi: yaa ayuha nabiyu, nebigaanow, qul liaswaajika, gabdhahaaga waxaad ku dhahdaa, qul liaswaajika wa banaatika iyo wa nisaa'i almu'miniin. xaasaskaaga la hadal, waxaad la hadashaa gabdhaha aad dhashay, waxaad la hadashaa gabdhaha mu'minaadka ah ama wiilasha mu'miniinta, gabdhaha u jooga dhammaan oo amar sii. waxa la amray ma aha walaalayaal inay dirac qaataan. waxa la amray ma aha walaalayaal inay isqaawiyaan. waxa la amray ma aha inay tabaruj iyo bannaanbax sameeyaan. waxa la amray ma aha inay kalaabyada iyo meelaha aroosada ka ciyaaraan. laakiin maxaa la amray? yudniina calayhinna min jalaabiibihinna. is-astura oo isqariya. waayo gabdhuhu waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu qaalisan bay ka mid yihiin ee adduunka jooga. waxyaabaha aadka loo jecel yahay ayay ka mid yihiin ee adduunka jooga, si uusan nin kasta si sahla u helin, si uusan nin kasta gacanta ugu taagin, si qof kasta uusan ugu hanqal taagin, ayaa waxa qaaliga ah ee dhaymanka ah ee dahabka ah meel asturan baa la geliyaa. sidaa darteed dumarka islaamka ah waxa uu ilaahay ku sharifay inay jalaabiib qaataan. waxa uu amray inay xijaabka islaamka labistaan. waxa uu amray inaysan iska dhigin badeeca raqiis ah. walaalayaal, sida la fahmi kara maanta waxaad arkaysaa qaawanaashii bay wax fiican u maleeyeen, qaabdaradii ayay u maleeyeen wax wanaagsan. wax walba oo rabbi idin amray qiimahiinaa ku jira, war sharaftiinaa ku jira. gabdhaha muslimaadka u isxijaaba. war ilaahay ka cabsadee jalaabiibta qaata. war ilaahay ka cabsadee is-astura. war ilaahay ka cabsadee amarka ilaahay qaata subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayhi wasalam, laba qolo ayaa imaan doonta gadaashay buu yidhi. laba qolo ayaa imaan doonta aakhiru zamanka. qoom koowaad wuxuu ku tilmaamay dad xaqdarra ku socda. waxay wataan guruumo iyo ulal aad u mooda saynta lo'da oo kale. dadkay ku garaacaan oo xaqnimay ku garaacaan. magacoodu waa magac ka mida magacyada naarta, suu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. subaxii markay rawaxayaan carro allay ku baxaan, markay soo caraawayaan galabtiina saqad iyo xanaaq allay ku soo noqdaan subxaana wa tacaala. qoomkaasi waa qoom macruufahoo la yaqaano. qoomka labaad rasuulku wuxuu yidhi waa nisaa, waa dumar kaasiyaad ah, caariyaad ah, maa'ilaad ah oo mumiilaad ah. sida loo raadinayaa la arkay gabdha 18 jira ah oo kalaab ka tumanaya, surwaal iyo funaanad bay wataan, islaamnimay sheeganayaan, ummaddii nebi moxamed bay sheeganayaan, soomaalinimay sheeganayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa 18 jir, waa 17 jir, waa wax ka sii yar iyo wax markaa ka weyn. waa dumar dhar qaba haddana qaawan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nimcada allay labisan yihiin, shukrigeeday ka qaawan yihiin. dharjiskooda iyo jasadkooday dhinac banneeyaan, dhinacna way qariyaan. gabdhaa imaan doona ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa dhar la'yihiin, haddana dhar bay qabaan. dirac bay wadataa, sadrigeeda la dareemi karaa, la sifayn karaa, caddaan iyo madow iyo guduud, wax allaala waxa uu yahay. waxaa la arkayaa silsilada iyo katiinada u xihan.
ودمر نوعاس dadka ayay iilaan ayagana xaqay ka iilayihiin ummaday leexinayaan buu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alle ragii maanta in badan dumar baa fidneeyay waxayna ku fidneeyeen amarka alle qaadan waayeen waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay banaanka la soo baxeen waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan waxay ku fidneeyeen wax Allah wixii cadaab alle lagu heli lahaa subhanahu wa ta'ala dumarow in badan xishooda war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa haday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa dumarku haday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan Muawiya ibn Abi Sufyaan baa minbarka nabiga ku istaagay baashan burukaday dumarku qaataan buu gacanta ku qabtay wuxuu yiri ahlul madiina aaway culi madiini waraawa dadkii xaqa dadka gaarsiinayay waraawa dadkii diinka ilaahay dadka gaarsiinayay baashan markay dumarku yeeshaan ayaa la halaaga rasuulkuna xadiis ayuu ku yiri adduunku waa macaan yahay macaanka carabka jecel saad la socotaan adduunku wuu cagaaran yahay cagaarkana indhaha jecel labadaba adduunka lagu soo kulmiyay ilaahay khaliif ayuu idinkaga dhigay asagoo raba inuu eega kayfa ta'maluun saad ugu amal qabanaysaan fattaqu dunya wattaqu nisaa warka cabsada adduunka dumarkana ka cabsada fidnadooda aad iyo aad uga cabsada war qabta in badan oo guryaha galiya war in badan u diida tabarrujkii safarka mahram la'aanta war in badan ha u ogolaanina inay banaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn war wax badan ha u ogolaanina inay meelaha fisqiga aadaan war wax badan ha u ogolaanina waayo fidnatii ugu horeysay ee reer bani Israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid way isqaawiyeen soo kuweena maanta isu qaawiyeen maxalla ayay samaysteen sida kuweena maanta u sameeyeen aroosyay ka ciyaareen sida kuweenay uga ciyaaraan buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuweena diin uga dhigteen in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeyeen naftiina in badan jalaabiibta islaamka qaata war aayad ilaahay oo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo basraacaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqa ka adeeganaysa noqda walaalayaal in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaala saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya saad diinta alla u nacdaan bay jannadu inay nacaysaa saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaasha u jeclaataan ya ibliis iyo shaytaan idin jeclaanaya haddii kale rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin xaqana dadkay ka iilayaan warka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin afka gudud marsatay dirac qafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata laamiga intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal soo ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan soo ma arkin inay idin fiirinayaan waa maa'ilaad way iilan yihiin dadkiina xaqay ka iilayaan war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan war sabab u noqda raggu inay hanuunaan mar allah la marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko yay malaa'iktu ku farxdaa xasanaad loo qoraa rabbi jeclaada shaytaanku ka carara laakiin kuweena maanta shaytaan baa saaxiib la'a war saaxiibnimada shaytaanka gooye xiriirka ilaahay hagaajiya sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kurskiisa oo kale oo iilan wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sallallahu calayhi wasallam naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye xataa udugeeda heli mayso naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa tacaam looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxa la cabsiinayo ay adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa laakiin dumarka kale laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay
إلهي سبحانه وتعالى حجاب كيسي إنكري أوديدي وحكي ماذا دعان كاسا شراب لوغا دغيا إنا لله وإنا إليه راجعون رسولك صلى الله عليه وسلم دمرك إن بدن أيو لهدلي وحيابها أو فري أو أمري وحاكمت إن حق وناق لغو دلالو إن دينت إلهي تبني من لو آمنو إن رب سبحانه وتعالى لغا عبصدو خيرك وناق إن آذي الله صعدو دمرك إن الله إنتي حجابيهم بخيري وناق دويهين إلهي إنت مركو شاقي أيو يري يدنين عليهن من جلابيبهن waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollankeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dhegan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay daacada alle ku dadaal waad u jeedaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeedaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii muxamedun rasuulullah aadanka tegaynin mar kastoo xayi cala salaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gawmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad moodaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك ما soo baxaya waaya gabar baa loo dhalay wax idinkaga dandarnaa ma jiray wax idinkaga fool xumaa ma jiray walaalayaal aabihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo aabihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin hadduusan dadka akhyaarta ag imaanaynin yatawaara waa dhuumanaya waa isqarinaya xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab inuu ciidda isaga duugo waxaan xunee dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeenuu wadaa garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal xayaatadan xayaataa ka dambaysa aabbe way tirtiraysaa caradii godkuu qodaayey yaa gerka uga taala aabbe ayadoo lahu qabanaya markaasuu ku tuurayaa markaasuu godkii ku ridayaa sayxadeedii qayladeedii oohinteeda la maqlaa laa ilaaha ila allah xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala
waida almaw'uudatu su'ilat tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay aaway kii duugay warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii kida waa xijaabkii kida wax la dhaha ma jire xijaab waa xijaabka alla soo dejiye subxaana wa tacaala xijaab waa midka ku astura xijaab waa midka aan korkaaga laga arkin xijaab waa midkan kugu dheganayn xijaab waa midaan khafiif ahayn xijaab waa midaan dharka gaalada u ekayn xijaab waa midaan catar iyo barfuun lahayn xijaab waa midda ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado inay gabar muslimad ah tahay inay gabar xaraa'ira oo xor ah tahay inay gabar ilaahay jecel tahay jalbaabkaa lagu aqoonsadaa jalbaabkaa lagu yaqaanaa jalbaabkaa lagu aqoonsadaa oo lagu fahmaa daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu ghafuuran raxiima ilaahay waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan maxaa labadaa loo daba dhigay maxaa aayadda labadaa loogu qatimay waa qatin aad iyo aad u qiimo badan wa kaana allahu ghafuuraa alla waa dembi dhaaf badne naag allah la naagtaan xijaabanin oo aan jirkeeda qarinin oo surwaal ama dirac khafiifa ama marag yara garabka saaratee bannaanka ku baxda hadday tawba keento saacaddan aan joogno ay dawaar laha aado dhar xoog badan oo culus oo shuruudaha xijaabka wata ay labisato ilaahay waa dembi dhaaf badne subxaana wa tacaala la dhihi maayo 20 sano iyo 30 sanaad jilbaab la'aan suuqa joogtay kaa aqbali maayo xaashaa gillaah ilaahay ma ahan subxaana wa tacaala dembiguuna cafin waana noo dhaafaya wa kaana allahu ghafuuran raxiima waa alla naxariis badan oo dadka aan xijaab ka wadanin aan ku soo dedejinin cadaabka subxaana wa tacaala waad u jeeddaa ayadoo la qaawan yahay ayadoo xumaan lagu jiro ayadoo diintii ilaahay laga tegey ayadoo xaqa iyo wanaagga aan lagu soconayn yuusan haddana ciqaabka nagu soo dedejinaynin war xijaabku waa quruxdiina naag walba say u xijaabataa naarta looga xijaabaa gabar walba say u xijaabataa ilaahay xumaanta uga xijaabaa gabar walba say rabbi uga cabsataa cadaabka looga ilaaliyaa gabar walba say ilaahay taacadiisii diintiisa u qaadatay jannada alla u heshaa subxaana wa tacaala daa darteed baa ragga in badan ixtiraamaan wanaagna ay u hayaan gabdhaha jilbaaban midda diraca khafiifka wadataa kabaha aan lagu socon karin soo gashatay aad mooda afkeeda waxaan la dayi karin sidii wax dhiig saaran oo kale bannaanka markay ku soo maraysa dhallinyarada gobolka mid ah walaalayaal way dulmiyaan way caayaan dhagax baa laga daba tuuraa qaar baa u fooriya xijaab qaadee bannaanka labiso waa lagu qiimaynayaa saad alla u qiimaysaa laguu qiimaynayaa saad alla uga cabsataa lagaaga cabsanayaa saad alla ugu dhowaataa khayrkii wanaagga lagugu soo dhowaynayaa xaaladaha noocaasa aad iyo aad ha loogu dadaalo rabbina ha laga baqa subxaana wa tacaala ilaahay asagoo noo tilmaamaya xijaabkii qaayihiisa iyo gabadha muslimaddaa sida looga baahan yahay inay ragga ajaanibta uga xijaabato waqul lilmu'minaat yaqdudna min absaarihinna waxaad ku dhahdaa gabdhaha mu'minaadka ah ee iimaanka leh indhihiinna laaba say indhahooda u laabaan war xibinkiinna tarankaa ilaaliya ku dheh say u ilaaliyaan buu dhahay ila subxaana wa tacaala indhihiinna laaba way laabi doonaan sababta waxay tahay hadal alle iyo amar alle unbay raadinayaan wayaxfadna furuujahunna ku dheh farjiyaalkiina ilaaliya say u ilaaliyaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa cawraadkiinna ha muujinina war bannaanka ha soo dhigina ilaa inta muuqata maahane war inta muuqata maahane qolaa waxay tiri inta muuqata waxaa loola jeedaa gabadhii jilbaabnayd oo xijaabnayd oo ayadoo dhan aan la arkayn ayaa fiicneed in la sii qariya haddana laakiin ma qarsoomaysa soo ma aha sidaa ha ku socoto waa waxay dabayli timaaday kor u qaaddo waa wejiga iyo gacmaha qofba meel unbuu ku tuuraye xaaladdaa walaalayaal aad iyo aad ugu dadaala cawraadkiinna ha muujinina ilaa inta muuqata maahane sida xayawaanka oo kaley bannaanka u maraan maanta walaqad karramnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr bani aadam waan karaamaynay baxarka iyo barrigaan ku xambaarnay buu dhahay ilaahay
waan arsuqnay tayibaadkii sheeyaalka fiicfiican ayaan wax kaga arsuqnay waxaan ka fadilnay wax badan oo waxa aan khalaqnay ka mid ah war xayawaanka fiiriya walaalayaal ayagoo cawraadkoodu fiday bay bannaanka baxaan maxay dhaantaa gabadha gacanteeda bannaanka soo dhigtay rida bannaanka maraysa maxay dhaantaa midda sadrigeedii laabteeda furtay rida bannaanka maraysa maxay dhaantaa midda lugaheeda iyo sashanyaalkeeda iyo lugadheertooda dhammaan bannaanka dhigay ridaa bannaanka maraysa aaway karaamadii aaway sharaftii aaway qiimihii aaway wanaaggii aaway sharaftii iyo ilaah subxaana wa tacaala u sameeyey intaasoo dhan dumarka maanta way dayaceen walaalayaal ha dayacina wallaahi waa laydinkaga sheekaysanayaa in badan heblaayaan arkay heblaayaan saa yeelay heblaayay saa noqotay subxaana allah sidaa darteed dumarka bacdamuu ilaahay dhayman wax ka qaalisan ka dhigay waxay iska dhigeen qashinqubka wax yaala maanta waxay iska dhigeen qashinqubka wax yaala maxay diinta islaamka u tiri nin allaala ninka raba inuu gabar guursado ha iska soo eego waa qarnaashay qarsoonaayeen waa faa'iidadii qiimaha ilaahay siiyey laakiin maanta wuxuu leeyahay maxaan ka eegaa waaba aqaanaaye maxaa ka fiiriyaa waaba ujeedaaye war idinkaa is yeelay haddaad isqarisaan oo daacada alla ku dadaashaan alla darti aad u xijaabataan wax badan oo khayra idiin hagaagaya wax badan oo sharana ilaahay wuu idinka badbaadinaya subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal ilaahay asagoo sii tilmaamahaya ayuu yidhi cawraadkiina ha muujinina ilaa maa dahara minha walyadribna bikhumurihinna khumurtu waa dharka waaweyn waa jalaabiibtii marooyinka culculus war kor ku soo tuura garbihiinna ku daboola waxaad ku soo qarisaan jasadkiinna oo dhan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala kor intaad ka keentaan hoos ha soo aado idinkoo dhan ha idin qariyo ha noqoto wax jasadkiinoo dhan kala gaaraayo waasic idiin ah walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna caaisha waxay tihi nicma nisaa nisaa'u lansaar naagaha reer madiina wallaahi dumar bay ku badnaayeen markuu alla soo dejiyey walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna maryihii haysteen bay isku toltoleen maro weyn baa ka soo baxday maalintaa wixii ka dambeeyey hal gabar oo toodaa jasadkeeda lama arkin walaalayaal haltooda ah oo ayaga ka mid ah maalintay aayaddaa soo degtay qaaraa habeenkii dhaqda oo subaxii ku soo labista qaaraa habeenkii dhaqanaaya halkaabaa lagu soo aadayaa suuqa oo lagu aadayaa meeshay u baahyaaniin iyo muxaadaraadka masaajidada wax kaloo u dambeeya malaha gacantooda lama arkin dumar baa soo xaadiraya salaada subax nebiga way laabanahayeen ayagoo ku duuduuban muruuqi iyo go'ahooda aan la aqoonsanaynin mid ka mida sida xadiis tilmaamay armaajooyin baa idin buuxa sanduuqyaa idin buuxa iyo boorsooyin saa darteed bax fiiri ta ugu fiican ee ugu wanaagsanee ugu xijaab fiican yaa laga yaabaa qayb ka mida in laga arko aaway dharkaa ilaah suu naguma cadaabaayo suuta rasuulku tilmaamay sal allahu calayh wasalam nimcadii allay hugan yihiin shukrigana way ka qaawan yihiin inay amarka alla qaataan bay ka qaawan yihiin inay dharkaa boorsooyinka ugu jiray labistaan bay ka qaawan yihiin xaaladdu yaysan sidaa noqonin gabar walboo bannaanka u baxda shaytaan ayaa badeeca geysta gabar walboo bannaanka baxaysay khayrkii wanaagga ku dadaal weligaana ha bixin oo ha u tabarrujin sida ay jaahiliga bannaanka u baxaan oo kale xaaladdaasuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala dumarkii saasay markaa ahaayeenoo rabbi amray inay qumurtooda isku duuduubaan oo ay jarbaha iyo madaxa iyo jasadka oo dhan markaa ay ku daboolaan ha u muujinina cawraadkiina ilaa ragga idinqaba maahane ama aabbayaalkii idin dhalay maahane ama ragga idinqaba aabbayaalkood maahane buuxullada iyo ragga idin qaba aabbayaalkood maahane wiilashii idinka aad dhasheen maahane ragga idin qaba wiilasha ay dhaleenay dumarka la soo dhaleen waaye maxramkaagii waaye asaga maahane walaalaha idinla dhashay maahane buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waa wiilasha walaalihiin ah wiilasha walaalihiin ah wiilasha ay dhaleen waa kuwaad eedooyinka u tihiin gabdhaha idinka idinla dhashay wiilashii ay dhaleen waa kuwa aad habaryaryaal u tihiin xaaladaasuu ilaah tilmaamaya subxaana wa tacaala ow banii akhawaatihinna ow nisaa'ihinna gabdhaha aad muslimaadka isla tihiin maahane intaa ka badan sharafta kale
aad raadinaysaan maxay tahay xataa kaafiradda khansiirka cunta ee khamrada cabta ee aan rabbi aqoon jasadkiinaa loo diidayaa sida ilaahay idin qiimeeyey subxaana wa tacaala gabar iimaan kula leh gabar ammaano kula haysataa gabar xijaab kula wadataa gabar kugu ag sujuuda gabar qur'aanka kugu aqrinaysaa gabar noocaas ah maahan inta kale xataa iska ilaaliya waayo qiimaad ka leedihiin alla agtiisa sharaf ayaad ka leedihiin alla agtiisa axkaamtan buu idinkugu soo dejinayaa xaaladaha waxay tilmaamayaan walaalayaal inaad aad iyo aad u dadaashaan allana ka cabsataan aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna aw الtaabiciin غayri uli اlirbati min الrijaal aw الطifli aladiina lam yadharuu calى cawraati الnisaa ciyaal yar yar ah oo aan kala garanayn cawraadka dumarka ah intaa buu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala weli waa la sii hagayaa markii xijaabkaagii la sheegay oo lagu xafiday oo lagu ilaaliyaa socodkaaga la kontaroolayaa walaa yadribna biarjulihinna lugihiinna dhulka ha ku garaacina kaba aad moodda sidii damiir qoobkiisa markay soconaysa gabadha dhulka uu ku dhaco yay sitaan maanta sidaa darteed baa lagu shanqarinayaa nin walboo dabaqa saddexaad iyo afaraad saaran daaqaduu soo furi suu kuu eego xaaladda ha samaynina qaab fiican u socda walaalayaal xarakaadka foosha xun iska daaya waxyaabo fara badan oo rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisuu ku inkiray iska ilaaliya walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna si loo ogaado waxa idiin qarsoon oo ziinadiina ah watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun liibaan xijaab buu ku jiraa inaad liibaantaan dharkaa malaabistay ku jirtaa inaad isxijaabtaan bay liibaantu ku jirtaa aad iyo aad ha loo dadaalo rabbina ha laga baqo khayrkii wanaaggana ha lagu socdo dumaroo dumar fiican noqda war dumar noo wareega ha noqonina war dumar dirac khafiifa noo qaata ha noo noqonina dumar mtaqaanaa goonooyin iyo saakooyin noo labista ha noqoninee dumar noo xijaaban oo noo asturan oo noo akhlaaq leh oo noo aadaab leh oo noo iimaan leh oo aan guryan iyo qaylo lahayn oo ciyaalkooda khayrkii wanaagga ku tarbiyeeya noqda taasaa alle subxaana wa tacaala idinku wanaajina khayr fara badanna alla idinku siin subxaana wa tacaala sharaf iyo wanaagna aad ku gaaraysaan adduun iyo aakhiro bacdamay xaaladdu sidaa tahay qof walba iyo gabar walbo adinka idinka mid ah ha ogaato xijaabku inuu waajib ku yahay 9 sano ayaa ugu fiican baa la yidhaahdaa in lagu bilaabo gabadha walow hadda ay jiraan gabdha ka sii yaryar 9 oo hooyadii jilbaaban tahay muxaadaro u soo socotaa gacantay uga soo dheggan tahay teeda yar ayadoo jilbaaban waa wax aad iyo aad loogu farxo waa wax ilaahay loogu mahadiyo subxaana wa tacaala dumarku isku mid ma aha qaar baa aad iyo aad ugu nugul aayaadka alleh qaar baa aad iyo aad ugu dadaalaya aayaadka alleh subxaana wa tacaala qaar ayaa aad iyo aad u jecel muxuu rabbi yidhi rasuulna yidhi الله عليه وسلم سي أحفظين با الله وحفظ يا آيات قال لي حديث النبي سي خيرك وناق وقد ذالين با إله الدنود وقد ذال يا سبحانه وتعالى آديات الدذالة ودونك وميل قابا ولا ليال هذا ما أنت إسقاوي سنارتنا لقوق قاويه إله سبحانه وتعالى كنعه لحولها النهارت لقاقات لك مويقاقي قريا وحقي مضبا معها أدونك ووح خفيف أدونك ووحير أدونك وميل قابا أدونك ميل بوكو إجيهي ولا ليال وآديات الدذالة إلهي كعب khayrkii wanaagga ha ka dhinac marina rasuulkiinana jeclaado amarkiisa fuliya sala allahu calayhi wasalam rasuulkiina ha dhinac marina ee aad iyo aad u qadariya war in badan buu idin qadariya war in badan buu idin sharfa xijaabka waxaa hoos imaanaya xishoodka haddaad xijaabantoodan xishood lahayn nin kastaad gacanta la gelayso ka hilibka gadana aan lagaa celin karin ka yaayada gadana aad dhex taagan tahay ka kalena aad gacanta la aadaysataa laftigeeda xijaab ma aha xijaabka xushmad buu leeyahay walaalayaal sharaf ayuu leeyahay walaalayaal sharaftiisa hagaajiya ha noqonina dad suuqa iskariim ku cuna ha noqonina dad suuqa ku buuqa ha noqonina dad suuqa waxay doonaan ku sameeya xaaladaha noocaas aad iyo aad isaga ilaaliya waayo rabbi subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga iyo xushmadda dumarka xijaabkaasuu ilaahay dhex dhigay subxaana wa tacaala gabadhii xijaabata allaagtiisa sad iyo wanaag ku leh taan xijaabanayna saan tilmaanay dheecaan naareed waa cadaabki waa cabitaankeeda zaquumo iyo geedka bariicna waa tacaamkeeda kor iyo hoos iyo dhinac walbana waa naar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay adduunku inuu wax yar yahay cadaabka ee
xijaabka rabbi idin amray oo aad qaadataan haddii kulayl waaye iyo waxa aad dhahdaanna naaru jahannama ashaddu xarra low kaanuu yafqahuun kuwa wax fahmaya haddayin jahannama ka xanuun badan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala wa kaana allahu ghafuuran raxiima waxay tilmaamaysaa xijaabku inuu yahay raxmad inuu yahay qabow inuu yahay khayr inuu yahay nimco inuu yahay sharaf inuu yahay wax aad iyo aad u qiimo badan xaaladaha saasay markaa u jiraan waxaad u ololaysaan oo aad u dadaashaan ha noqoto sidii xijaabka loo qaadan lahaa ee dadaal ha u noqonina yuusan noqonin inaad madaxowdaan yuusan noqonin in wax kale lagu tilmaamo hayuusan noqonin in dharkaa lagaa dhigo wallaahi gabdhaha gaalada gobol ka mid ah ayaa waxaa laga soo tabinayaa low nala xijaabi lahaa qaar baa laga soo tabinaya low guryahana la fadhiisin lahaa qaar baa laga soo tabinaya low raggeena ay bannaanka nooga soo shaqayn lahaayeen qaar baa laga soo tabinaya oo laga soo warinaya low ilaahay subxaana wa tacaala sida gabdhaha muslimaadka ah khayrkan iyo wanaaggan uu u amray ayagana saasoo kale loo amri lahaa laakiin aaway kuweeni xalaasaa loo hanqaltaagayaa marka dawaarka la aadaayo ee dharka la soo tolanayo harqaalaha gabdhaha gaalada goonadu say u toshaan baa meesha u yaala waxaad arkaysaa gabar fadhisa oo saa u baarbaaraysa gabar u tolan oo gabdhaha nooca imtiqaana diinkan haysanin ah habkay u tolatay say u labisatay u labisanayaan say u tolatay u tolanayaan wiilasheenna say tan u jaratay u jaranayaan xaaladahaasoo dhan baa la samaynayaa bacdamay xaaladdu saa tahay rabbi ha laga baqo khayrkii wanaaggan ha lagu dadaalo ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo karaamaynayaa waana noo nimcaynayaa dumarkeena hadday noo wada xijaabtaan xishoodkana ay ku dadaalaan istixyaha iyo sariigtana ee sidii loogu talagalay ay ula yimaadaan rabbina suu amray ay markaa ula socdaan intaa wixii ka dambeeya ayuu rabbi yidhi waqarna fii buyuutikunna guryihiina iska fadhiya waa sida ugu qiimaha badan hadday damacdo ama se arrin timaado waxaa loo baahday inay dan yeelato waxaa loo baahday inay muxaadaro aado inay suuq ka soo adeegatay wixii markaa la mid ah markaasna bannaankaa u soo bixina sida ay jaahiliga u soo baxaan oo kale buu rabbi yidhi salaada ooga sakada hagaajiyo bixiya rabbi ateeca rasuul ateeca ilaahay khayr iyo wanaag ayuu idin siinaya subxaana wa tacaala dardaarankeena wuxuu noqonayaa xijaabkii jalaabiibta in aad iyo aad loogu dadaalo rabbina laga baqo subxaana wa tacaala gabdhaha muslimaadka ah waxaan rabbi uga baryayaa khayrkii wanaag inuu ilaahay waafajiyo inuu ilaahay jeclaysiiyo xijaabka xishoodka tabarrujka inuu rabbi ka ilaaliyo safarka maxram la'aanta inuu ilaahay ka celiyo subxaana wa tacaala inay noqdaan gabdha khayrkii wanaagay ku dadaaleen ilaahay subxaana wa tacaala la hortagaa ka bacdina jannooyinkiisa qiimaha badan ilaahay kuu abaalmariyo subxaana wa tacaala wax badan baan ilaahay ka baryaa inta xanuunsan caafimaad taam inuu ilaahay siiyo inta murugaysan inuu ilaahay murugta ka qaado subxaana wa tacaala inta muraad leh muraadkooda oo khayr ah inuu ilaahay u sakhiro subxaana wa tacaala saan khayrkan iyo wanaaggan ugu kulannay ilaahay jannooyinkiisa firdowsa naciima iyo meelaha la midka ah rabbi ha nagu kulmiyo allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin